guushu waa dhalanteed aad u qurux badan, qof kastana uu ku haminayo gaaridda guusha, taasoo dadna ay ka rumeeyaan guusha, qaar kalena ka niyad jabaan kana rajo dhigaan tartanka guusha. Maanta muuqaalkan waxaynu kula wadaagayaa milkiilaha webka Alibaba ee Jack Ma. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Jaarig. intaynan muuqaalka u gelin subscribe noo dhaha iyo like, waayo like-tu waxay kordhinaysaa naguna dhiirigelinaysaa inaanu muuqaaladan noocan oo kale soo badino hawgalno muuqaalka oo faahfaahsan. Jack Ma waxa uu dhashay sanadu markay ahayd 1964 magaalo la dhaho Hangzhou ee dalka China ku taal. Xaggaas ayuu waxbarashadiisa sare iyo dhexeba ku qaatay. Jack Ma wax ka badan 3 jeer ayuu waxbarashada ku dhacay, laakiin ma uusan niyad jabin. Jack Ma ee wadada guusha ayuu cagta saaray. Adkaysiga iyo dhabar adayga ayaa waxay ku horseedaan inaad ku noolaato nolol wanaagsan. Jack Ma waxa uu dalbaday shaqooyin aad u fara badan, laakiin ma helin shaqooyinka uu dalbaday. Waxa uuna raadiyay waddo kale uu ku dabiri karo noloshiisa. Waxa uuna helay shaqo macalinimo ah uu dhigi jiray luqadda Ingiriishka, waxaana uu ku qaadan jiray qadar leeg $10 ama ka yar. Jack Ma waxa uu aad u jeclaa in uu horumariyo qaab u hadalka luqadda Ingiriishka, waxaana uu saacad kasta baaskiilkiisa u kaxaysan jiray hoteelada ay imaadaan dadka dalxiisayaasha si uu kor ugu qaado qaab u hadalka luqadda Ingiriishka. Jack Ma kuma uusan qanacsanayn shaqadan hooseysa ee macalinimada ee qadarka $10 iyo wixii ka yar lagu qaadanayo. Waxa uuna go'aansaday inuu u socdaalo dhanka iyo Mareykanka si uu u bedelo noloshiisa si fiicanna xagga uu uga nolol bilaabo. Waxaana uu Mareykanka ka bilaabay kulliyadda kombiyuutarka, waxaana Jack Ma ku dhalatay fikradda ah inuu aasaaso website-kiisa aynu naqaano ee caanka ah ee la dhaho Alibaba Web, kaasoo ahaa bilowgii guushiisa. Website-kiisa waa website si online ah wax la iskaga iibsado. Maantana dhaqaalihiisa Jack Ma waxa uu gaaraa $39 milyan oo dollarka Mareykanka ah, waxaana loo aqoonsaday waa Jack Ma 25 ganacsade ee qaaradda Asia hal abuurka ku leh. Oraahihii haddaynu soo qaadano Jack Ma ugu caansanaa waxa ka mid ahaa: waxaa suurtagal ah in aad asaaska hoose aad ka bilowdid meesha ugu hooseysa aad gaadhid. waxaa kaloo ka mid ahaa waxaa kaloo yar uu yiri waa Jack Ma markay riyadaadu iyo hamigaagu uu sareeyo kuma dhibaan waxyaabaha hooseeya.